الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وحين نكبل بين آيات اللح كم سورة الأنعام قيبتي ظهرين قال الله تعالى إلهي بأوحي ألم يروا مياني أركين كما أهلكنا إنت نبابئنا من قبلهم هرتود من قرن أمد مكناهم في الأرض dhulka dhexdiisana waxaan u awoodsiinay ummadda ma lam numakin lakum waxaan idinka awood idin siin wa arsalna samaa calayhim roobkiina waxaan uga soo dejinay dushooda ayaan ugu soo dejinay midraaran isagoo israacraacsan oo badan wajacalna al-anhaara wabiyadiina waxaanu ka dhignay tajri mid qulqulaysa min tahtihim hoostooda fa ahlaknaahum bidunuubihim gafafkoodii baan ummadaha ku baabi'inay wa ansha'naa min bacdihim kuwaa dabadood waxaanu soo abuurnay qarnan aakhariin ummado kale walow nasalnaa calayka kitaaban haddaanu nebi maxamedow kugu soo dejinno kitaab fii qirdaasin xaashiya ku sugan falamasuuhu ay ku taabtaan biaydiihim gacmahooda gacantaba ay saaraan لقال الذين كفروا كوي قالوا بوحي ورن لهايين إن هذا كان موهان إلا سحر مبين سحر عدم ويا وحك لما هان وقالوا دين لا وياش وحي لهذين لولا نزل عليه ملك وميا لقو سودة شيء محمد ملك ده أمر خاتك ألا وحد ولو أنزلنا ملكا هدانو ملك سودة نبا لقضي الأمر أرن كبوالا رمين لها ثم لا ينظرون لو منكاديين ولو جعلناه ملكا هدان الرسول كدغ لهين ملك لجعلناه رجلا نينون بانو كدغ لهين هدنا مid qof u eg wala labasna عليهم iyaga waxaanu ka shaki galin lahayn ma yalbisuuna imkaba waxaanay ka shakisan yihiin wala qad istuhzi'a dabnimo waxa lagu dheeldheelay bi rasulin min qablik رسول الله أديك كاهر ريا نبي محمد فحاق وحكو هبسدي بالذين سخروا منه وما ذي الرسول الله كتشس جسا كل دال وحكو دقي ما عذاب كي كانوا يا هاي به سجى يستهزئون كوا كل دال قل وحاتر رسول الله سيروا في الأرض بل دولك صعد الضديها ثم انظروا وحا اكتان كيف كان سيدو النغضي سيدا النقطة عاقبة المكذبين kuwii ilaahay rususha beeniyay ciribtoodii cirib xumada ku dhacda eega oo wax ku qaata kama baxayaan aayaduhu intii guudaynu si guud ahaan u soo sharaxnayno inay suuradu ka waramaysa aynu soo tilmaanay bay ku nuuxnuuxsanaysa shaygana haddii mar la sheego iyo haddii marar badan la sheego wuu kala duwan yahay waxa marar badan lagu sheegay ee lagugu soo celceliyaa waad cabtaayo uu kugu dagaayo uu kugu sugnaa wixii hal mar lagu sheegaano sidaa ma noqdo sidaa daraadeed arintani waa arin asala waa arin caqiide ah waa arin dad badan ka soo horjeedsadeen noocyo badan lihi marka quraanku siyaabo kala duwan isagoo u dhigaya dadku ka dhaadhicinaya waxa kala aad arkaysaa quraanku dadkii buu qiimeyn saarayaayo qolo waliba wixii ay tiri mid ku saxanaya mid kaleba wala sheegi doonaa calaan buu ilaahay dusha uga tuurayo wuxuu yiri nimankan ilaahay ka gaaloobay miyaanay arkaynin intaanu qarni halaagnay ka horeeyay yaanay arkayn qarniyo badan baa ilaahay u halaagay iskama halaagay ilaahay ma dulmiya adoomaha laakiin waxa lagu halaagay maxay dambi ay galeen dambi ay sameeyeen fa halaknaahum bidunuubi ayaa lagu halaagay كيفك أي سميين باو مدها إلهي وكبابي تبارك وتعالى إذن وحال كانوا كقادنا العاقل من اتعظ بغيره والجاهل من اتعظ بنفسه بالله قفك عقلك عليه عندك لوك عبرقاته 10 الله دقاي قفك جاهل كاهنا وكان جامي إلى إساق أي سوق قادو marka isaga soo gaadho de warba ma lahaba imika dhimashada laga warramaa quraanku siyaabo inoo sharxaya waxa kamida
mararka qaarkood waa xusnee wacdiga waxyigu wuxuu u badan yahay 4 meelood taaratan yacidunaa rabbuna biaayaati illaah wa taaratan yacidunaa biaalaa'i illaah wa taaratan biayaami illaah wa taaratan bilmowt intaasay suuradduna u badantay mar qur-aanku wuxuu inagu wacdinayaa ayaam allah ayaamihii ilaahay ee adduunkan soo maray iyo ummada siduu u galay waa tan imika aynu arkayno marna wuxuu inagu waaninayaa aalaa allah ilaahay nicmooyinkiisa waa ka sidaa yeelay waa ka saa yeelay waa ka waxaa abuuray waa ka waxaa idiin abuuray mar saddexaadna wuxuu inagu waaninayaa aayaat illaah taa hore waa aalaa allah aalaadu waxa weeyaan fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan waa nicmada markuu suuratu lancaam ay nicmooleyda ka warramaysa beeraha ay ka warramaysa barwaaqada adduunka ay ka warramayso waa aalaa allah fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan jin iyo insiyo nicmada ilaahay faraha badan tee beeninaysa tee cid kale siinaysa marna waa aayaatullah ilaahay aayadihiisuu inagu waaninayaayo dee waa kaa aayad walba intaasoo aayado aayad qur-aana aayad mucjisa aayad caalamka waa aayadihii weeye taas 3 arrimood oo isu yar eeg habka ay u socdaan midda afraadna waxa weeyaan dadka wuxuu qur-aanku ku waaninayaa bilmowt geerida 114 aayadood baa almowt walxayaa wadunya walaakhira iyaguna saa isu daba dhigaya marka waxa weeye qofkii ilaahay u khayr la doonay qalbigiisa waxaygaasi ugu dhaadhacayaa kii kalena waa safmar ayaamullaahi weeye haddani miyaanay arkaynin intaanu qarni halaagnay qarnigu dee wuxuu ahaa ummad wakti nool qolo waliba qarni waliba wakti unbuu leeyahy la tilmaamo ugu badnaan inay yihiin 100 sano meelaha taqriiban 3 qarniye uu nebigu yihi 3 qarniye ummaddan u horreeyey baa fadli badan qarnu saxaaba wataabiciin waatbaacu taabiciin 270 sano meelahaasay ahaayeen qarnigii horreeyey 100 sano ka kalena waa ka sii yaraa ka kalena 60 sano meelahaas waa 3 qarni marka la isku xisaabiyo ilaa atbaacu taabiciin culamaa taariikh waxay tilmaameen inay gaarayaan 270 sano meelaha idan qarnigaas in waqti nool bay ahaayeenoo ilaahay baa halaagay makannaahum fi lardi maa lam numakin lakum weliba ummaddaa waxaanu siinay waxaanaan idinka idin siin tamkiin makana yumakkinu tamkiinan tamkiintu waa awoodsiinta ilaahay baa awood siiyey oo adduun buu siiyey oo aqoon buu siiyey oo laakiin iimaanunbaa ka maqnaa wax alla wixii ay dadku heleen oo dhami markay ilaahay ugu mahadnaqi waayeen wuxuu ka doonayay in ay diideen halaag bay dhashay tamkiintaasina waa ta loo yaqaano tamkiinu alistidraaj waa tamkiin lagu lugeynaya dadka dadaan ilaahay ogolaynba hadduu wax isugu hagaajiyo ma aha taasi tamkiin ilaahay uu khayr la doonay ee waa miduu ku baabiinayo ku halaagayo taawliyadiisa uu siyaana waa tamkiinu rida waa mid uga raali waxay heleen mabaydaan helin haddana halkoodii baa maraysaa wixii ku dhacun baa idinku dhici وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وبرواقدي roobkiioo fara badan buu ilaahay ku shubayo beeru u sameeyayo markaasaa waxaan ku halaagay buu ilaahay dembigoodii un baa lagu baabiyey والذنوب منجل حساد يستأصل الظالمين من العباد haddaad aragto dembigu waa maqaska iyo cagafta daalimku markuu dembi galo cagaftii ilaahay baa daba taaganoo saa u xaadhaysa marka ilaahay wuxuu leeyahay maslaka al-umam al-ghabira ummadaha halaagay halkay mareen idinkuna ha marina فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين dee kuwii hore markay tageen kuwo kalun baa iyaguna tijaabadii galay marka waxaynu fahmaynaa noloshu inay tahay kolba ayaamo cid la tijaabinaya qolo guulaysiye qaar fashilmaba wuxuu ilaahay inoo xusay haddaba nimankan imika bedelay ummadihii hore ee wakhtiga qaadanaya qur-aanku uu soo degayo inuu canaadkoodu meel gaadhay ilaan ciddaad u tegayseed wuxu sheegaysa waa inaad taqaanaa waxay yihiin marka had iyo jeer waxyigu wuxuu barayaa rasuulka
wuxuu barayaa cidda uu ku socdaa waxay yihiin iyo halkay taageen si uu garan karo tallaabadu qaadayo siduu la dhaqmayo markaasaa ilaahay wuxuu uhi walow nazalnaa calayka kitaaban fii qirdaasin falamasuuhu biaydiihim gaalada haddaan ku soo dejiyo kitaab xaashiya ku qoran ay gacmaha ku taabtaan gaalku wuxuunu leeyahy in haadaa ilaa sixrun mubiin maxay ka turjumaysaa markaa waxay ka turjumaysaa canaadka meel bay gaadheene ku xisaabtan canaadkoodu aad buu u badan yahay waayo qofka bani aadamka xawaastiisa iyo dareemayaashiisa meelaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a aragga iyo taabashada ayaa ugu muhiimsan marka hadday kitaabkii arkaan isagoo qoran oo indhaha saaraan oo weliba gacantana ay ku taabtaan oo looba dhiibaba dee sixir bay ku sheegayaan sixirkana wixii khiyaalayeen la arag baa lagu sheegaa kana indhaha saara inay tuujiyeen ay taabteen bay sixir ku sheegayaan markaasaad khayr ka sugaysaa markaa markaasaad ka sugaysaa wax waxyiya oo masmuuc ahoo ay maqlayaan oo ilaahay looga keenay inay rumeeyaan kii la taaban lahaa baanay rumaynaynin marka ku talagal weeye ragga halkaasuu ka gaadhay canaadku canaadkooda waxaa ka mida inaanay ku qancin cilmiga la siiyey iyo mucjisooyinka iyo aayadaha iyo waxoo dhane itaabsiidii unbaa sii socon lahayd oo natus malag bay odhan lahayd markhaati kitaabka maa la soo qoro haddii loo dhiibay saasay yidhaahdeen dee nebigu keligii buu soconayaa maa markhaatiyaa loo sameeyo oo maa isaga laftiisuba waa bashar iyo bani aadama maa malag laga dhigo waxaasoo dhanna ilaahay uu ka jawaabay wuxuu nasku ina barayaa dabeecadda dadka aada la doodayso markaad barato kadib inaad daliilkii qancin lahaana keento wa qaaluu lowlaa unzila calayhi malak walow anzalnaa malakan laqudiya alamru uma laa yundaruun maa lagu soo dejiya nebiga malag marka malagu wuxuu noqonayaa malag u markhaati fura maa la keena bay yidhaahdeen oo idhaa farta ku fiiqo oo idhaahda kani waa maxamed baa la idhaa ilaahay baa soo diray waxaasaa laydinka doonayaa bal sidaa ma yeelaan jawaabtu ilaahay bixiye waxa weeye malagu markuu yimaado ee uu ku yimaado sawirkiisii malagnimada markuu ku yimaado wuxuu u yimaadaa uun ummaddaa in la halaagayo marka halaagaasaa iman lahaa malaa'igtu markay ummadaha u iman jireen iyagoo malagnimadoodii ku sugan waa mar ay la socdaan halaag marka codsigoodan haddii loo aqbali lahaa malaa'igtu sawirkoodii malagnimada ahaa ku iman lahaayeen waxba kama hadheenba loomana kaadiyeen markay qayliyaan uma laa yundaruun way qaylinayaane oo idhaahdaan bal aan rumaynayno kaadiye looma kaadiyeen haddaanu malag ku soo dejin lahayn waxaa kaloo lagu fasirayaa oo malaggii ay codsadeen ay diidi lahaayeen ila waxay dhahan waanu rumaynaynaa ballan baanu ku qaadaynaa malagun hagu markhaati furo kaa haddii ay beenin lahaayeen markaana halaag baa ku xigi lahay waxaa kaloo ay codsadeen rasuulka maxaaba looga dhigi waayaba malagba ile marka rasuul la sheegayo wase iyagu dee isku qanciyeen waa inuu dadka wax kaga duwanaadaayo wax dheeraadaayo waa in had iyo jeer qof dee caadiya aanu noqonin ayay yidhahdeen waa se iyagu yidhaahdeen oo qofka jaahilkii dee wuxuu doonu iska odhan karaa ilaa rasuushu taariikh bay lahaayeen kutub baa lagu soo dejiyey ummadaha ku abtirsanaya imikada caalamka jooga markaa may weydiinin ummadaha waa ka ilahay yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka aqoonta leh kutubtii hore haystay ahlucilmigaa wax weydiiya waxaad doontaan ha odhanine nimankii mushrikiinta ee carbeed saasuu ilaahay ku leeyahy ahlu dikrigu waa kuwa rusushii hore rumaysan ee kutubtii hore lagu soo dejiyey markaa rusushii hore dee may ahayn malaa'ig bashar bay ahaayeen bal hadda wax weydiiya baa ilahay marka waxay leeyihiin maaba malag laga dhigaba ilaahayna wuxuu ihi haddaan malag ka dhigi lahaa nebi maxamed walow jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajulan ninun baan ka dhigi lahaa marnaba uguma iman kareen isagoo rasuula sifada iyo tilmaanta iyo muuqaalka malagnimada waxay isweydiin le maxaa diiday dee waxaa diidaya dabeecadda malagga iyo dabeecaddan bani aadamkaan isqabanayn waayo rasuulka waxaa loogu talagelayaa oo xikmaddiisu ay tahay dadka inuu hanuuniyo qur-aanku wuxuu u yimid dadka inuu hanuuniyo rasuulkuna xikmaddu u socdaa waxa weeye basharka inuu hanuuniyo marka malag sidiisa u soconaya sida rasuulka uma hanuunin kara dadkan marka u horeysa dee ishooduba ma ay qaban karteen ila ilaahay malaa'igtiisa nuur buu ka abuuray markaa mabay xejin kareenba eegmadiisa midda labaad sida rasuulka looga faa'iidaysanayo malag loogama faa'iidaystay oo rasuulku diinta dadka wuxuu ku siinayaa ku hanuuninayaa qayb maqal buu ugu sheegayaa wixii la soo gaarsiiyey maqal buu ku gaarsiiyey qaybna muuqaal iyo dhaqan malaga ma isku dhaqan bayno iskuna dhaqan ma yihiin
iskuna xaalad ma yihiin malagaan waxba cunayn oo aan waxba cabayn oo aan seexanayn oo aan dumar guursanayn oo aan kula lugaynayn oo ku ag fadhiisan karayn yaa dalaalaysa haddaad ag fadhiisato bal seed yeelaysaa seed diinta uga koobi garaynaysa ila diintii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in qaybina ay tahay masmuuc qaybina mar iyo muuqaal ahaan nebiga waa inaga arkayno sida wax loo cunayo sida loo cabayo sida loo guursadayo sida dadka loo xukumayo sida loo tukiyayo waxaasoo dhan buu ina tusayaa waa xadiidiisa waxaa la yidhaha qowlun wa ficlun wa taqriiru waa qowl iyo ficil iyo awsaaftiisi marka malagu arrimahaasoo dhan kamay suuroobeen idan markaa haddii malagnimo lagu keeno kolleyba haddana wuxuuna loo rogi lahaa un malagaasi wuxuu isu egeysiin lahaa un ninunbuu noqon lahaa lajacalnaahu rajulan sidii malakul jibriilo xaaladaha qaarkood nebi maxamed ugu iman jiray isagoo nin u eg asxaabi buu soo egeysin jiray leelaa dixyatulkalb waaya markuu malagii isagoo malag oo rasuula intuu yimaado haddana u egaado nin bartii unbay ka miisi lahayn oo haddana waa nin miyuu isbedelay imikana oo malag baaba lagu sheegay isagoo kan isbedelo waa nin waxay ka cararayeenna nin buu ahaa godkii ay ka cararayeen unbay ku dhici lahaayeen markaasuu ilaahay walalabasnaa calayhim maa yalbisuun labsiga waxaa la yidhaha af carabiga shayga mukhtalidka ah macnaa iltabasa bimacnaa ikhtalada waxbaa wax kaa dhex galay neef xoolahood wadaybaa xoolo kale kaa dhex galay iltabasa qofaad eegeysay baa dadkii kaa dhex galo waad garan weyday ikhtalata marka waxa weeye wixii ay kolkii horeba shakiga gelinayeen unbaa imikana shakigii geli lahay kolkii hore nin bay ka shakisanayeen rasuulnimadiisa imikana halkii unbay istaagi lahayd ilaa malagii baa nin u egaaday shakinimadii rasuulnimadu barteedii unbay taagnaan lahayd markaa isnaadkii buu ilaahay isu tiiriyo wuxuu ihi walalabasnaa calayhim waxaanu ka murgin lahayn oo aanu ka madoobayn lahayn oo aanu ka shaki gelin lahayn maa yalbisuun kii iyaguba marka hore ay shaki geliyeen ila haddaad adigu shakiga qaadatay ilaahayna wuu kugu waday haddaad adigu qaanacaadda wadatay ilaahayna wuu kuu kordhin falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum waxaad ilaahay ka dooratay unbuu kuu kordhin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii tolkii iyo ehelkii iyo ummaddii uu doonaya inuu hanuuniyo waxaan kala kulmay alla wuu qanciyey subxaanahu wa tacaala markaasaa waxaa ilaahay u yihi walaqad istuhziya birusulin min qablik laqad dhaar iyo taxqiiq dhabnimo waan dhaartaye adiga hortaa waxaa lagu dheeldheelay oo lagu ciyaaray rasuullo kaa horeeyey laakiin ilaahay rasuulladiisii wuu argudayo faxaaqa biladiina sakhiruu minhum maa kaanuu bihi yastahziuun cadaabkii ay ku dheeldheelayeen unbaa ummadaha ku habsaday wixii ay ku dheeldheelayeen muxuu ah waa cadaab oo say ugu dheeldheeleen markuu nebigu yidhaahdo ama rasuulkaasi yidhaahdo waxaasuu ilahay idinka doonayaa yeela haddaa yeeli weydaanna ilaahay wuu idin cadaabayaa oo cadowgiisa ilaahay saasuu cadaaba siduu qolo hoblaaye u cadaabay kuwa u cadaabay markuu cadaabkaa sheega ayay yidhahdeen ma cadaab baad sheegtay cadaabka laftiisaba keen yaa cadaabka qudhiisaba nagu soo deji bay yidhaah cajil lanaa qidanaa qabla yowmi alxisaab annagu intaan aakhiraba la gaadhin qaybtayada cadaabka iska keen abi jahlna muxuu ihi allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindik faamdir calayna xijaarata min aلsamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim maxamed kaa uu sheegay hadduu xaq yahay ilaahu nagu hanuuni mu odhanin nacasnimadiisa wuxuu yidhi ilaahayow dhagaxaana ka soo daadi samada cadaab kululna nagu rid marka wixii ay ku dheeldheelayaan ilaan markaad arrintaasoo kale samaynayso waanad rumaysnayna waad ku dheeldheelaysa kiibaa ku habsaday sidaa horeba aynu u soo sheegnay qofka jaahilka ahi naftiisu ku cibro qaata qofka waacidka ahina dadka kaleu ku cibro qaata oo fiirso markaasaa ilaahay waxa uu leey intaana idinka idin soo gaadhin kuwii idinka horreeyey ku cibro qaata qul siiruu fi lard uma nduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin waa caynkaa dhulka hala socdo inaad dhulka socotaa waaba ma'muurba diinteenna bayna fartayba laakiin way kala duwan tahay markaad dalka iyo dadka intoo dhex marto safarkaagaasi uu yahay lilcidati waalcibar midaad cashara ku qaadanayso oo dalka ilaahay iyo dadka ilaahay iyo duunyada ilaahay iyo xayawaanka iyo siduu ilaahay u abuuray awooddiisa dabeecadahooda si ay u kala duwan yihin aad ku cibro qaadanayso iyo markaad tahay noocii dalxiiska ah iska digdig lahaa ee lahaa intaasaan ku nafisayaa jawaan intood xambaarata aada ordayso gaaladu dalka lacagtooda u badan waxay kaga baxdaa adduunyada inay maraan
laakiin wuxuu u marayaa waxa weeye tanazuh inuu raaxo ka dayo rafaadka saasaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo cadcadaynayaayoo aan waxba ummadda uga qarinin alcibaru lmushaahada tacdudu alcibara almutasawara cibarka qaarkood waa mushaahad waxyaabaa lagu cibro qaato qaar waa la arkayaa marka cibradaa waxaa la arkaya lagu cibro qaadanayaa waxay xoojisaa cibrooyinka kale musawarka ah ee si macno ahaana diintu ay noogu sheegayso waxna sawirkiisa iyo waxa laynoo sheegay un xaaladiisu waxaygu inoo tilmaamaya waxna muuqaalkiisa markaa waxaan muuqaalka ah ee lagu cibro qaadanaya kii macnawiga ahaabu ayuu kuu xoojinayaa oo uu ku adkaynaya saa daraaddeed baa ilaahay uu faray subxaana wa tacaala in uu rasuulka ummadda ku waaniyo eegeegaan ay wax ka faa'idaystaan hadiyo jeerna waxaa la yidhaahdaa man yacish yaraa kaiira waman yusaafir yaraa akar xikmad carabeed baa waxay odhanaysaa man yacish yaraa kaiira qofka muddo dheer noolaadaa wax badan buu arkay waa kii ninkii yidhi cimrigaaga oo raagageel dhalayna wuu ku tusaa show nin aan weligii ma beer buu dhex taagnaa meel kale haddaad sii jirta buui geel dhalayna waad arkay haddaba waa kii xoolahaba inoo ahaaba laakiin man yusaafir yaraa akara bay dhah qofka safar gale ee dal iyo dad dhex mara ayaa kaa cimriga dheer wax ka sii badan arka bay dhah nimaan dhul marini dhaayala haddaana dhulka marin arag badani waa kuu dhiman yihi markaa qur-aanku saasuu inoo farayaa inaynu ku cibro qaadanaynu ka faaidaysanana way tahay allana waxaynu ka baraynaa waxyigu wuxuu inoo sheegayo inuu qalbigeenna galo wallahu subxaana wa tacala aclam